الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan ku jirnaa walaalayaal marxaladda labaad kitaabkii labaad darsigii labaad ayaan gelaynaa insha Allah. mowduuca kitaabku ku saabsanaa sidaan soo tilmaanay wuxuu ahaa diinta islaamka iyo wanaagyada ay leedahay iyo sida adduunka oo dhan uu baahi ugu qabo. mowduuca darsigan wuxuu ku saabsan yahay diimaha kale iyo madaahibta kale ee adduunyada ka jirta inaysan ku fillayn hagaajinta iyo horumarinta bulshada adduunka ku nool. qusuuru al-adyaani wal-madaahib al-ukhraa waa gaabinta diimaha iyo madaahibta kale ay ka gaabiyeen can islaaxi al-bashar hagaajinta bani aadamka noloshooda la hagaajiyo wa taxqiiqi sacaadatihim iyo liibaantooda ama farxadooda in la xaqiijiyo. al-adyaanu asamaawiya diimaha samada loo nisbeeyo التي كتب لها البقاء إلى الآن باقي النقشة اللوقر إلى هذا 3 ويا اليهودية والمسيحية والإسلام. ديمها ويفربدين نطقوا يهيستان لكن دين تقيمها لوا مد أساس كيدو وكي من الله حقيس وصمد كسو دكتير رسول الله سو ديبي كوا كلام مركي وحما هجاجين كرام انتي سماوي أحيد diin samada xaggeeda loo nisbay karo la dhihi karo rasuul baa keenay asal ahaantiida hadda 3 diimood baa ka jirta waa yahuuda iyo kirishtanka iyo islaamka saddexda weeye. saddexdaas ayuu rabaa marka sheekhu inuu isbarbar dhigo si ay kugu cadaato diinta islaamku si ay u sarreyso. wa kullu min ad-diyanatayn mid walba oo kamid labada diimood al-yahuudiyati wal-masiixiyya qaasiratun waa mid ka gaabisay عن إصلاح البشر وتحقيق سعادتهم هجاجين بني آدم كأيو لبانتو دين لحقيجيو للأسباب الآتية أسباب تصوص وتدرتيد أيانا قابس كاسو وجره وأيسان مرنبه بلشادة قد ما يستري كرين وقف الله كرين. قضب ككواد أما سبب ككواد أنهما ديانتان خاصتان وإن أيهين لبدي مود أو خاصة بقوم موسى وعيسى نبي موسى نبي عيسى قوم كهودي أي قاركويه ويهوديدنا قوم موسى أي قاركوتا نصرانية أي مسيحيدنا نبي عيسى قوم كيزي أي قاركوتا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي هذا الكيسان كتصين يؤير كان النبي يبعث إلى قومه خاصة النبي وحو أهانجري قوم كيس خاص أهان إن الله ديره وبعثت إلى الناس عامة أنا كان ضدك جود أهان بالله يتري متفق عليه بخاري مسلم باوري. marka hadii qolo gaar ah asal ahaan diintan loogu talagalay adduunka oo dhan kuma filaa karto. sababka labaad anna fiihima waxa ku jira labada diimood tadyiqan cariirin wa shiddatan iyo adayg baa ku jira. wa min xikmati illaahi allah xikmadiisana waxa kamid ah anna sharaa'ic al-khaasata shariicooyinka khaaska ahayd takuunu mulaa'imatan li ashaabiha waxay noqonaysaa mid munaasib oo ku haboon asxaabteeda dadka loo diray ee dadka loo soo dejiyo diinta la siiyay ama shariicada bixaythu la tasluhu heer aan u suubanin shariicatan li ghayrihim shariicada u noqoto iyaga cid aan ahayn. shariicooyinkii khaaska ahaa shariico walba qolada la siiyay ayay munaasab u ahayd oo iyaga maslaxadoodii ay xaqiijinaysay laakiin ummado kale shariico uma noqon karto masaalixdoodii ma xaqiijinayso لأن الحكمة محايل حكمة waxay tahay alla yushra'a li ummatin ummad inaan loo sharciyeyn إلا ما يناسبها وحي مناسب نقنا معا حيث وضع الله على بني إسرائيل الله ري بني إسرائيل وعدوشو ذا صاري من الآثار حقي عليسيدة والأغلال حقي حركها وحيال بدر يكون حرحرنايين ما يناسب طبيعتهم وحالهم وحب مناسب أيها طبيعة دود أي حالة دودي أي الله شرعي. قال الله تعالى الله وعير الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذين يتبعون كوا الراعية الرسول النبي الرسول كان نبي الأمية أمي نبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين يجدونه الرسول كأي هليان مكتوبا عندهم أكتودا متكو قرن إنه في التوراة والإنجيل توراة إنجيل يأمرهم بالمعروف وناقي سوى فري وينهاهم عن المنكر حمانتي نكريبيا ويحل لهم حلالين الطيبات وحيالها وناكسا ويحرم عليهم كحرم الخبائث وحيالها حن ويضع عنهم كدقية وكردية إسرهم عليسكوذا والأغلال أي حركها التي كانت عليهم يدوشوا ضاحي. marka Allah wuxuu sheegay
towraad iyo injiil dadkii la siiyey oo ay alyahuudiyatu walmasiixiya ah culaysyo badan inay saarnaayeen, xarka badan in lagu xirxiray, iyaga xaaladooda bayna munaasab u ahayd. nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam marka la soo diray inta raacda culayskaas iyo xarkahaas ayuu ka ridaya, uu ka fududaynaya. famin dalika arrinkaa waxaa ka mid ah yani culaysyadii saarna anna salaata laa tuqaamu salaadii inaan lagu oogeyn oo aan lagu tukanayn ilaa fi lamaakin almucaddati laha ilaa meelaha loo diyaariye maahane khaasatan si khaasa kalbiyaci walkanaa'is sida biicooyinka. biica waxaa la dhaha meesha yahuuddu ay ku cibaadaysato, kaniisadna waa meesha nasraaniyada ama kirishtanku ay ku cibaadaystaan. marka meeshaas cibaadadooda loogu talagala maahane meel kale iyagu inay ku cibaadaystaan oo salaadii ay ku tukadaan looma ogoleen, ma aysan ka ansaxayn. annaga laakiin muslimiin haddaanna waad garanaysaano meel walba ayaan ku tukan karna oo salaaddu way kaaga ansaxaysa. anna man cadima almaa'a laa yatataharu bituraab, qofkii biyo waaya ciid ma uusan ku tahaaro qaadanin, bitayamum booraysi ma aanu jirin. bal tabqa salaatu fii dimmatihi, salaadu dimmadiisa ayay ku baaqi noqonayso, dayn bay ku ahaanaysay xataa yajida almaa ilaa biyaha uu helo oo fayaqdiyaha markaa salaadii uu qalleeyo. anna almaghaanima alatii dafira biha almujaahiduun, qaniimooyinka ay ku guulaystaan mujaahidiintu laa taxilu lahum xalaal uma aysan ahayn. culaysyadii saaraa ay ka mid ahay. qaala nabiyu sal allahu calayh wasalam, rasuulku wuxuu yidhi uctiitu khamsan, waxaa la isiiyey 5 arrimood lam yuctahunna axadun qabli aan la siinin qof aniga iga horreeyey oo rusushii ka mid a. nusirtu birucbi, argagax baa la iigu gargaaray masiirata shahrin, bil meel loo socdo. yacni markii bil meel loo socdo rasuulku cadowgiisa uu soo jiro ayaa allah cadowgiisa qalbigiisa argagax iyo cabsi uu gelinay. wa jucilat liya alardu, dhulkiibaa waxaa la iiga dhigay masjidan, meel aan ku sujuudo ku tukado, wa tahuura iyo meel aan ku tahaaro qaato. waadna ku tukanaysaa iyadii, waadna ku tahaaro qaadanaysaa ciiddii. fa ayumaa rajulin min ummatii, qof walba ummadayda ka mid a adrakathu salaatu ee salaadu ay soo haleesho falyusalli ha tukado, meel allaali meeshii adduunka aad joogto. haddaad masjidkii joogto, haddaad gurigii joogto, haddaad bannaanka iyo saxaraha joogto, ama waxaad helaysaa biyo aad ku weyse qaadato ama ciid aad ku booraysato ayaad helaysaa. dhulkuna waa daahiru, ciiddii ayaad isaga tukanaysaa, masjidkii waad ku tukanaysaa. wa uxillat lii, waxaa la ii xalaaliyey almaghaanimu ghaniimooyinkii, walam taxila liaxadin qablii, qof iga horreeyey rusushii ka mid ahna xalaal uma aysan noqon. muttafaqun calayh. halkaa markaa nabigu sal allahu alay wasalam wuxuu sheegay 3 arrimood oo 5tii ka mid uu sheekhu soo guuriyey, sida xadiidka dhammaystirkiisu uu ahaa wa uctiitu shafaaca, shafaacadii weyneed baa laysiiyey, waa qodobka 4aad. qodobka 5aadna horey baan usoo marno, wa kaana nabiyu yubcathu ilaa qowmihi khaasatan wa bucithtu ila annaasi caama. 5taas arrimood ayaa nabiga sal allahu alayh wasalam si gaar ah loo siiyey. wa fii diini alyahuudi, yahuudda diintooda dhexdeeda xurima calayhim, waxaa laga xaaraameeyey bacdu tayibaati, waxyaalo wanaagsanaa qaar ka mid ah, bisababi dulmihim wa cudwaanihim, dulmigooda iyo gardaradooda sababkeed ayaa xaaraan looga dhigay oo ilahay waa ku ciqaabay. qaala allahu tacaala, allah wuxuu yidhi fabidulmin min aladiina haaduu, dulmi ka ahaaday kuwii yahuudoobay xaggooda sababkii xaramnaa calayhim ayaan xaaraan uga dhignay tayibaatin uxillat lahum, waxyaalo wanaagsanaayo loo xalaaliyey. qodobka 3aad marka intaas oo dhan waxay calaamad u tahay adayg badan iyo culays badan inuu ku jiro diimahaas oo adduunka oo dhan marka munaasabaysan u ahay. qodobka 3aad annahu xasala fii haatayni shariicatayn alyahuudiyati walmasiixiya, labadan diimood, labadan shariico ee yahuudiyada iyo kirishtanka ah waxaa dhex dhacay oo ku yimid min ataxriifi, xagga qalluucinta, watabdiil iyo bedelidda, wa labsi alxaqi bilbaatil, iyo xaqi baatil in lagu dheeho lagu qaldo, maa yamnacu wax diidaya oo ka hor imaanaya islaaxa albashari bihimaa, bani aadamkii labadaa diimood in lagu hagaajiyo oo la yidhaahdo diimahaas baa laydinku islaaxinaya, waad qaadanaysaa. low qudira baqaa'uhumaa diinan, intaasoo dhan waa haddii la qadari lahaa inay baaqi ku yihiin diin ahaan, oo diin allah uu raalli ka yahay inay yihiinoo baaqi sida ay ku ahaadeen haddiiba la qadaro weeyaan. fa kayfa waqad nusikha tadayunu bihimaa bishariicati alislaam, sidee ayaa xaalku noqonayaa iyadoo la nasakhayba in diin laga dhigto labadaas shariicadii islaamka lagu nasakhay. shariicadii islaamka ayaaba nasakhday oo meesha iyagu way ka baxeen. waidaa lam yumkin iscaadu albashari bidiyaanatayni alyahuudiyati walmasiixiya, mar haddii aanay suurtogelin
bani aadamka liibaantoodii iyo guushoodii in lagu keeno labada diimood ee yahuudiyada iyo masiixiyada maca annahumaa shariicataani samaawiyataani iyagoo asal ahaana laba shariico xagga samada loo nisbeeyo famaa cadaahumaa labada waxa ka soo haray min atashriicaati ee ah sharciyada albaciidati can itashriici asamaawiyi ee ah mid ka fog shareecadii samada loo nisbaynayay min baabin awlaa kuwa iyagu ku habboon weeyaan oo min baabin awlaa bani aadamkii noloshooda ma hagaaji karaan oo haddii yahuudiyadii iyo nasraaniyadii waxba ay tari weysay buudiyadii iyo hinduuskii iyo waxyaalihii la midkaa iyo ilxaadkiina waxba ma taraya oo dadku wanaag ku heli maaya takaamulu lislaami wa waxdatu mabaadi'ihi isdhammaystirka islaamka iyo mabaadi'diisu sida ay mid u tahay fii islaaxi shucabi alxayaati alinsaaniya nolosha bani aadamka qaybaheeda hagaajintoodii ee islaamku uu ku dhammaystiran yahay oo mid uu ku yahay ayaa mowduucan uu ku saabsan yahay waana mowduuca ugu dheer sidaan soo tilmaannay oo qaybo fara badan sheekhu uu ku faahfaahi doono waana meesha wax badan looga hadli doono maxaasinulislaam diinta islaamku wanaagyada ay leedahay alislaamu diinun kaamil islaamku waa diin dhammaystiran shaamilun oo kulminaya liislaaxi jamiici shucabi alxayaati alinsaaniya nolosha bani aadamka qaybaheeda oo dhan hagaajinteeda mid kulminaya wey liqowlihi tacaala allah qowlkiisaa ku tusinaya in sidaa marka horeba loogu talagalay alyowma akmaltu lakum maanta ayaan idiin dhammaystira diinakum diintiin wa atmamtu calaykum waxaan idiin taam yeelay nicmatii nicmadayda wa radiitu lakum waxaan idinkaga raali noqday alislaama islaamka diinan diin ah marka diintan islaamku mid kaamil ah oo dhammaystiran inay tahay oo nicmadii oo dhan ay ku dhammaystirmayso haddii la qaato allahna raalli uu nooga noqonayo ayay aayaddu tusinaysa waliannahu sharcullahi midda kale waa sharcigii allah alcaliimi bimaa yuslixu khalqahu ee isagu cilmiga u lahaa khalqigiisa wixii hagaajinaya alxakiimi bimaa yashracuhu lahum ee xikmadda u lahaa waxa uu u sharciyeynayo diinta islaamku waa sharciga allah uu sameeyey oo isagu uu noo soo dejiyey waxaana shaki lahayn bani aadamka wixii munaasab u ah oo maslaxadooda ay ku jirto oo noloshooda ay ku hagaagayso allihii abuur inuu garanayo sidoo kale allah subxaanahu wa tacaala axad xikmo badan inuu yahay oo wax xikmad aysan ku jirin oo munaasab aan ahayn inuusan noo keenin taas mid la og yaha weeyaan marka sharciga islaamku maadaama uu yahay allihii cilmiga badnaa ee xikmadda badnaa sharciga uuna siiyey isaga ayaa midkana anfacaya adduun iyo aakhiraba walianna tacaaliimahu shaahidatun bidaalika midda kale axkaamtiisa iyo masaa'ishiisa islaamka ayaa ka markhaati kacaysa arrinka falqur'aanu qur'aanku wa huwa dastuuru lislaam isaga ayaana ah islaamka dastuurkiise lam yugfil shay-an kama uusan tegin shay mimaa yanfacu naasa dadka wixii anfacaya ka mid a dadka wixii anfacaya shay ka mid a kama uusan tegin xataa aadaaba juluusihim xataa aadaabta fadhigooda kama uusan tegin wa dukhuuli lbeyt iyo aadaabta guriga lagu galo wanaxwa iyo wixii la mid a allah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah idaa qiila lakum marka laydinku yidhahdo tafasaxuu fi lmajaalisi meelaha aad fadhisaan isu waasiciya fafsaxuu waasiciya yafsax illaahu lakum allah baa idin waasicinaya adinkana jannadii allah wuxuu idinka siinayaa meelo aad ka degtaan oo waasaca marka xataa majliskii dadku ay fadhiyeen ee qof haddii uu yimaado matal in loo waasiciyo aadaabtii majliska ayaa allah aayadda uga hadlay waidaa qiila lakum haddii laydin yidhahdo unshuzuu kaca oo fadhiga ka kaca laydin yidhahdo salaadii ama khayrkale laydinkugu yeero fanshuzuu kaca wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah laa tadkhuluu ha gelinina buyuutan hayra buyuutikum guryo aan guryihiinna ahayn xataa tasta'nisuu ilaa aad idan weydiisataan iyaduna aadaabu dukhuuli beyt bay ka hadlaysaa guri kale inaad dalaq iska dhihin ilaa aad gargaraacdu tiraahdo ma soo galaaho assalaamu calaykum aad tiraahdo والسنة النبوية سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وهي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي وأنا مصدر كاللباد تشريع إسلام وليه يعني شريعة إسلام كماش اللباد يلا قاطوية سنة النبي حديث تيسي لم تغفل إيضنا كما يسنتجن مثل هذه الأمور الدقيقة الرمها دقيقة قرصون أو كله كما يسنتجن فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته رسولك أمتي سوحوا بري كيف يأكلون سيدي وحو عنيان ويشربون أي وحو عبيان وينامون أي سيحانيان ويبولون أي كاتشيان ويتغوطون أي صحاريان مسقوش أي واديان
intaasoo dhan aadaabteeda iyo axkaamteeda ayaa waxna looga sheegay maca ana haadihi alumuura iyadoo arrimahani basiidatu mid fudud ay tahay binisbati lisalaati waasiyaami waazakaati waalxaji marka loo fiiriyo arkaantii waaweynida salaadii iyo soonkii iyo sakadii xajkii wagayri daalika iyo intaas wixii aan ahayn marka arrimahaas hoose yani shakhsiga mararka qaar ah haddii nabigu sal allahu alay wasalam si faahfaahsan uu nooga hadlayo aadaabta iyo axkaamta ku saabsan uu noo sharaxay wixii ka weynna min baabin awlaa weyan wixii ka weyn qofka yani saxaradii iyo kaadidii soo isaga nadiifin lahaa in la baro yani matalan afkaartiisa iyo adduunyadan qaabku ugu noolaan lahaa iyo sida rabbulcaalamiin ugu caabudi lahaa iyo horumar siduu ku gaari lahaana aan loo sheegin ma suurtagelayso falislaamu kaamilun fi lcaqiidati islaamku marka waa mid kaamil ku ah oo ku dhammaystiran caqiidada waalcibaadati iyo cibaadada waaliqtisaadi dhaqaalaha waalijtimaaci arrimaha bulshada wa siyaasati dowla maamulka dowladda waictisaazi almuslimi bidiini iyo qofka muslimka diintiisa inuu ku cizoobo intaasoo dhanba markaad fiiriso mid walboo ka mida waxaad ogaanaysaa diinta islaamku inay tahay diin kaamil ah oo dhammaystiran intaas marka qodob qodob ayaa loo dul istaagi doonaa waxaa lagu bilaabayaa kamaalu lislaami fi lcaqiida sida diinka islaamku uu kaamil ugu yahay caqiidada caqiidada wixii la aamino ee qalbiga la gashado fa huwa kaamilun fi lcaqiidati islaamku waa mid kaamil ku ah caqiidada liannaha caqiidatun raasikha maxayla caqiido sugan weeyaan mabniyatun ee mid ku dhisan ah lagu dhisay calaa maa taqtadiihi alfitratu sida ay keensanayso abuuristu waalcaqlu saliim iyo caqliga saliimka fahiya aliimaanu billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi caqiidada islaamku waa in la rumeeyo allah malaa'igtiisa kutubtiisa iyo rusushiisa walyowmi alaakhir maalinka aakhiro waalqadari khayrihi wa sharihi qadarka khayrkiisa iyo shartiisa asaaskeedu taas weya sidaan ku soo marray kitaabkii hore alcaqiidatu alislaamiya waan soo fahmnay faahfaahinteeda qaala tacaala allah wuxuu yidhi aamana arasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbih rasuulku wuu rumeeyey waa aaminay wixii loo soo dejiyey rabbigii xaggii looga soo dejiyey waalmu'minuun mu'miniintuna way aamineen way rumeeyeen kullun mid walboo ka mid yaha aamana billaahi allah buu rumeeyey wa malaa'ikatihi buu rumeeyey wa kutubihi buu rumeeyey wa rusulihi buu rumeeyey laa nufariqu bayna axadin min rusuli waxayna leeyihin ma kala saarayno allah rusushiisa kulligood waan rumaynayna wa qaaluu waxay yidhahdeen samicnaa waan maqalnay wa atacna waana yeelnay wixiina loo sheegay waan maqalnay waana yeelno wa ateecnay gufraanaka ilaahu dembi dhaafkaagaan ku weydiisanaynaa rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenniyo wa ilayka almasiir noqodkuna xaggaaga ayuu ahaaday xaggaaga ayaan u soo laabanayna adigaana xisaabi doona aliimaanu billaahi rabban cadiiman allah in loo rumay inuu yahay rabbi weyn ilaahan xaqan macbuud xaqa inuu yahay laa shariika lahu fii daalika arrinkaas mid la wadaaga inaanu jirin walaa fii khasaa'isi asmaa'ihi wa sifaatihi magacyadiisa iyo tilmaamihiisa khasaa'istooda axad la wadaagana aanu jirin aliimaanu billaahi xaakiman musharican allah in la rumeeyo inuu yahay midka xukmiya adduunka ee sharciga u dejiya falxukmu min alcaliyi alkabiir xukunku wuxuu ka ahaada allaha sare ee weyn xukunka adduunkan haddii ay tahay qadar ahaan maamulkiisa iyo haddii ay tahay sharci ahaan intaba allah xaggii buu ka ahaanaya falaa xabrun ma jiro caalin mid aqoon leh walaa xabr iyo mid wadaad walaa raahibun iyo mid wadaad ah oo yani cibaadaysto caabid ah walaa amiirun mid amiira walaa sultaan iyo mid madaxa yastatiicu ee awooda tagyiira xukmin min axkaam illah bedelidda xukun ka mid a axkaamtii allah ma jiro allah subxaana watacaala xukunkii kowniga ah ee qadarka ah hadduu yahana cid wax ka bedeli kartaa ma jirto xukunkiisa sharciga ee rasuulka uu soo dhiibay hadduu yahana cid wax ka bedeli kartaa ma jirto xukunkaas in lagu dhaqmo ayaa waajiba ilaa yowma alqiyaama rasuul kaloo imaanaya wax ka bedelayana ma jiro xataa nabi ciise aakhiru zamaanka markuu yimaado nabi maxamed sal allahu alay wasalam sharcigiisa ayuu ku xukminaya adduunka dadka jooga marka ama ha noqdo wadaad aqoon badan leh ama ha noqdo mid iska cibaadaysta ama qof la yidhaahdo maaragtay caalim weeyaan iyo culummo iyo khubaro iyo wixii la doona ha la yidhaahdo ama waa mid amiira ama waa mid madaxa noocuu doona ha noqdee qof wax ka bedeli kara xukun ka mid a axkaamtii allah ma jiro alxalaalu maa axalahu allah xalaashu waa wixii allah uu xalaal ka dhigay waalxaraamu maa xaramahu xaaraantuna waa wixii allah uu xaaraan ka dhigay ee ma aha cid kale waxay xalaal ka dhigtay iyo cid kale waxay xaaraan ka dhigtay cid kale loo fiirinaya ma jirto walwaajibu maa awjabahu waajibkuna waa wixii allah uu waajibiyey cid kaloo wax waajibi karta male
laa mucaqiba lixukmi allah xukunkiisa cid ka daba tegaysaa ma jirto walaa tabdiila likalimaatihi kalimaadkiisuna bedelid ma laha allah kalimaadkiisa kowniga iyo kalimaadkiisa sharciga bedelid ma laha labadu aliimaanu bilmabda'i walmacaad in la rumeeyo bilowgii iyo noqodkii bani aadamku meeshay ka soo bilowdeen iyo meeshay u laabanayaan ee aakhira falkhalqu min allaahi wa ilayhi khalqigu alle xaggii bay ka yimaadeen alle xaggii bayna u laabanayaan oo allah subxaana watacaala isagaana abuuray abuuristeena marka la fiiriyo allah xaggii ayaan ka nimido allah baana abuuray allah xaggiisa ayaan u dambaynaynaa oo dhammaanteen wada dhimanaynaa aakhir ayaana la soo saaraya rabbulcaalamiin hortiisa ayana la keenaya walan yakuuna mabda'uhum walaa masiiruhum bilowgooda iyo masiirkooduna ma noqonayo sudan ciyaar marnaba ma noqonayo bilaa macnana nalooma abuurin oo nalooma samayn bilowgeennu bilaa macno ma ahayn dhammaadkeenna iyo masiirkeenna iyo mustaqbalkeennuna bilaa macno ma noqonayo oo laa gaayata lahu wax gaayo ah wax yool ah iyo hadafa aan lahayn walaa maqsuuda min waraa'ihi wax ujeedoo ka dambeeyana aan lahayn bal laa budda min masiirin wa marjic waxaa laga maarmaan ah masiir iyo meel loo laabto inay jirto walaa budda min camalin lidaalika almasiiri walmarjic waxaan laga maarmaan ah masiirkaas iyo meesha loo laabano in loo camal falo marka meel loo laabanayo masiirkii iyo mustaqbalkii aayatiinkeenii ayaa jira meeshaasna adduunyada hadda intaan joogno inaan u camal falno ayaana laka doonaya samicnaa wa atacnaa sida yidhahdee dadkii wanaagsanaa waa maqalno waan yeelnay gufraanaka rabbanaa rabbigeenu dembi dhaafaan ku weydiisanayna wa ilayka almasiir noqodkuna xaggaagu ahda masiirku alle xaggii buu jira faman yacmal midqaala daratin khayran qofka sameeye dhuuracsa qadarkeed ee khayra yarahu wuu arkaya masiirka aakhiro marka la tago wuu arkaya abaalgudkeedii waman yacmal midqaala daratin sharan qofka sameeye dhuuracsa qadarkeed ee shar ahna yarahu wuu arkaya isaguna aakhiro marka masiirkaas dambe waa la isku xisaabinaya wa ina caqiidatan ka haadihi caqiida midaan oo kale ah tasxabu linsaana qofka way la soconaysaa qaa'iman mid taagan isagoo ah wa qaacida mid fadhiya isagoo calaa jambi dhinaciisa isagoo u jiifa yacni xaalad walba ayay caqiidadaasi qalbigiisa ku jirtaaho ay hagaajinaysaa noloshiisa laa budda waxaa laga maarmaana an tuwajihahu inay yacni jihayso atawjiiha saliima jihaynta saliimka ee bedqabta fii jamiici shu'uuni alxayaa nolosha qaybaheeda oo dhan gudahooda inay sidaas u maaragtay jihayso ayaa laga maarmaan fayakuunu wuxuu noqonayaa mustaqiiman calaa amri illaahi tacaala mid ku toosan allah amarkiisa ayuu noqonaya marka caqiidada saliimka ah ee qofka qalbigiisa ku jirta ee faahfaahinteeda kitaabka hore aan ku soo marnay ayaa ah caqiidada islaamka caqiidadaasna qayb walba oo ka mid a faa'iidooyinka ay leedahay laftirkooda waan soo marno kitaabkii hore ayay ku jirta aliimaanu billaah iyo aliimaan bilkutub aliimaan bilaakhira kulli mid walbaahi thamaraadka iyo fawaa'idda uu leeyahay faa'iidooyinkaas marka haddaad u fiirsato qofku hadduu helo noloshiisa hagaag maba u dhimana noloshiisu waxay noqonaysaa mid hagaagsan oo dhammaystiran dhinac walba marka la fiiriyo darsi walaalkaa noogu joogo wallahu aclam sal allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin